بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود قصدوا هذا البرنامج كان عاوة وأنا قاعد دكتور يوسف عاوة وحين كهلنا موضوع آد مهم فيتامينك عدعادة أما فيتامينك قرحدة أما في قفص دو يقانو فيتامين دي فيتامين كان مهم جدكينا فيتامين كان waxaynu ka heli karnaa laba qaybood qaybta ugu weyn ee ka heli karnaa waxa weeye waa cadceeda 90% waxaan ka heli karnaa cadceeda in yar oo kamid ah boqolka oo lagu qiyaaso 10% ayaa waxaan ka helaa cuntadeena ka helaa sameynsinka fitamiin kan waxay naga caawiyaa ama inoo sahla inaynu helo fitamiin D oo inoo sameeya maqaarka jirkeena ayaa inoo sahla oo inoo sameeya marka helitaanka fitamiin dhamaystiran ama kuwa filan waxay muhiim u tahay caafimaadka jirkaaga waxay kaloo ay muhiim u tahay lafahaaga caafimaad qabka lafahaaga adeega lafahaaga waxa kaloo inaga caawiya fitamiin D oo muhiim iyo aad muhiim ugu yahay qaybta difaaca ee jirkeena taasoo inaga difaacda xanuunada oo xanuuno fara badan sida xanuunada infection oo kale fitamiin D doorka ugu weyn ee ugu muhiimsan uu ka ciyaaro jirkeena waxa kamid ah inuu ilaaliyo ama maareeyo heerka macdanaha jirka sida calcium oo kale phosphorus oo kale macdanahan oo aad iyo aad muhiim ugu ah jirkeena iyo oo waxay muhiim ugu yihiin lafaha jirkeena inaad hesho lafa caafimaad qaba inaad hesho lafa adag oo aan si sahlan u jabayn waxaasoo waxa muhiim ay u tahay oo inaga caawiya fitamiin D fitamiin D waxa kale oo inaga yareeya halista cudurro fara badan waxaana kamid ah cudurrada kansarka ee ku dhaca caloosha qaybta hoose ee mindhicirka waxa kaloo kamid ah cudurro ku dhaca wadnaha waxa kaloo ku dhaca infectionka oo kale ee ku dhaca sida infection sida corona oo kale ama infection ku dhaca qaybta sare ee dhuun mareynta qaybta sare ee ku dhaca infection ku dhaco kale waxyaabahaas oo dhan iyo sida asmada oo kale waxyaabahaas oo dhan wuxuu qayb libaaxle ka qaataa fitamiin D adaba fitamiin D cuntooyinka ugu badan ee laga helo waxaynu ognahay inaynu qaybta ugu muhiimsan ee laga helo fitamiin D ay tahay cadceeda 90% laakiin waxaynu ilaa qiyaasaan ilaa 10% oo wax yara ayaa laga helaa cuntooyinka hadda waxaan soo qaadanaa ama 2 ama 3 cuntooyinka ugu faraha badan ee laga helo fitamiin D waxaa kamid ah mushroom oo kale fish kalluunka sida tuna oo kale ama salmon oo kale ukunta ama beedka qaybta gudaha ee yellow ah lo-do kale sida beerka lo-do kale ay 3-4taas oo ugu badan ee laga helo fitamiin D waxaa jira marmar uu fitamiinku ku yaraado jirkaaga haddii uu jirkaaga ku yaraado fitamiin D oo aad u dhaco waxyaabo badan dad ku sababa hadii jeer fitamiinkaaga hooseeya ayaan is ogeyn in fitamiinku ka yar yahay waayo wax calaamada ma laha waxba ma dareemisid waa iska caafimaad qabtaa laakiin markuu aad iyo aad u sii dhaco waxyaabo badan buu sababa tusaale ahaan lafihii qofku si yar iska fudud buu lafuhu u jabayaan lafihii baa daciif noqonaya oo iska jabaya oo jilicsanaanaya hormoofo waxa la dhaho lafaha hormoofo kale oo qof yeelanaya qofka weyn oo kale lafihii baa iska easy u jabaya qofkii dhabarkiiba ka soo qalloocsanaya kale lugihii ayaa qalloocsanaya isu jeejisay lagu qallooc buu yeelanaya kale si sahlan way u jabayaan caruurtii oo kale hadii qofku wuxuu dareemayaa kale lafa xanuun ama muruq xanuun ama wax daal buu dareemaya oranaya muruqyadii iyo lafaha iyo daal buu dareemaya oranaya xanuunka dareemaya caruurta kalena waxa weeye ayagana lagu qalloocsan daawade waxa aad iyo aad muhiim u ah inaad fitamiin D ama fitamiinka cadceeda isagoo supplement aad qaadato haddii aad joogto wadan cadceed leh aad cadceeda isu dhigto haddii aad joogto wadamada cadceedu ku yartahay ee aan xilliga qabobaha kale aan cadceed helin inaad qaadato imanka daraasadaha la sameeyay ee caafimaadka waxay tilmaamayaan tusaale ahaan oo kale wadanka Mareykanka oo kale dadka madmadowga ama midabka leh ee Soomaaliya ka mid tahay 82% inuu fitamiinka cadceeda oo aad hooseeyo wadamada Yurub oo kale imanka daraasado la sameeyay oo xilligii corona oo kale waxay sheegayaan inay Soomaalidu aad iyo aad 100% fitamiinkooda aad u hooseeyo waxaana rag oo kale waxa ku sameeyo kale ama qofku sigaar buu caba ama qaad buu cunaa ama qorax
ku filan ma helo. Dumarkii oo kale way hawooban yihiin oo kale, marna gurigii bay ku jiraan, markay dibadda u baxaanna way hawooban yihiin, marka cadceeddii ma helayaan. Marka haddaad gabadh haweene tahay ama qof dumara tahay, waxaa muhiim ah in aad qaadato faytamiinka oo hab kiniinka ah oo aad ka helayso supermarketka, aad ka helayso ama farmasiga aad ka helayso, ayaa aad iyo aad muhiim u ah. Waxaana muhiim u ah inaad dhakhtarkaaga tagto, aad iska eegto dhiigga lagaa jeegaray inta uu yahay faytamiinkaagu. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay doos in badan aad u baahan tahay, laakiin normally waxaa qofka muhiim ah inuu hal tablet oo kale qaato xilliga qofku markuu weynaado oo kale, ama qofka buuran oo kale. Waxyaabahaas oo dhan waxay sababaan inuu hoos u dhaco maqaarkii inoo sameynayay skinka, maqaarkii inoo sameynayay faytamiinka. Marka waxaan daawada kugula talin lahaa inaad qaadato faytamiinkaas, waayo aad iyo aad buu muhiim u yahay. haddii uu fitamiinkaasi hooseeyo oo tusaale ahaan oo kale daraasaha la sameeyey xanuunkan corona kugu dhaco, waxaad u dhowdahay aad u baahanaysa in hospitaalka lagu dhigo, laakiin hospitaalka lagu daweeyo. Laakiin haddii aanu fitamiinkaagu uu okay yahay oo normal yahay, waxaa laga yaabaa inaan u baahnan in hospitaal lagu dhigo aad ka bogsato. marka aad iyo aad muhiim u yahay. aniga ku dhaydo waan isticmaalaa isagoo supplementiya waa vitamin, waxaa ku qoran vitamin D baana ku qoran. marka waa muhiim inaad supplementiga qaadato because mar haddaan cadceedi helin aad iyo aad waxay muhiim u tahay inaad qaadato. haddaad Soomaaliya kala joogto waxaa muhiim ah inaad maalintii isu dhigto cadceeda si aad u hesho fitamiinka. marka daawada barnaamijkan caawa intaan kusoo koobinaa. haddii aad fiidiyogan wax ka baratay, fadlan subscribe garee, una sii share garee qof aad jeceshahay, familygaaga iyo saaxiibkaaga si looga faa'iideysto. aad iyo aad ba mahadsantiin.